بسم الله. halkan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan fariin ugu diro dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada isla markaasna caadaystay in ay soo gudbiyaan waxyaabaha fawaaxishta ah ee bulshada ay la wadaagaan isla markaasna berri ka maalin oranaya wixii ayaga ahaa waan ka toobad keenay. towbadaas iyo xaalkeeda ayaan rabaa inaan insha allahu tacaala iyo fariin yar oo wasiya inaan ku daro hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. awalan walaalayaal, qofka bini aadamka ah waxaa ku xiriira shaydaankaasi haddii uu ka qaalib noqdo oo uu isku dayo markaasi in uu maamulo istaxwada calayhim shaytaan fa ansaahum dikra. shaydaan baa waxaa weeyaan ka qaalib noqonaya, hawadiisuuna raacaya. hawa raacaas kadib haddii qofka uu toobad keeno oo is yidhaahdo waa ka toobad keenay wixii aan shalay sameeyey oo social mediaha aan ku faafinayay. awalan walaalayaal, waxaad arkaysaa dhalinyaro badan, qaar wadaada yihiin, siyaabo kala gedisan ooga hadlo arrimaha iyaga ah. shareecadeennuna waxay leedahay gunaanad, waxbay ka soo hadlaysaa, towbaday ka soo hadlaysaa, shuruudaheeday ka hadlaysaa, noocyada ay kala yihiin bay ka hadlaysaa, meel bay ku gunaanadaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaa ka sugnaaday inuu yiri xadiis saxiix ah, kullu ummatii mucaafi, ummadaydo dhan waxa weye waa la cafinaya ila almujaahiriin. ummadaydo dhan waa la cafinayaa ila almujaahiriin, kuwa xumaanta la jahra. xumaanta lala jahra maxaa waaye? wax ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo adiga aada isla ogtihiin ood samaysay inaad banaanka keento, dadka oga sheekayso, xalay sidaanaan sameeyey, sidana xaalka ahaa, waxaanaan xaday, qamraan cabay, saanaan sameeyey, waa zinaystay iyo waxyaala lamid ah, inaad dadka ku faafiso. wamaca daalika hadda waxaa bedelay fideoyaal lagu faafiyo baraha bulshada oo macaasi ah.